qablihina qiimaha iyo qadarinta mudan. Halkan baan idin salaamayaa. Muuqaalkan iniga maanta idin sameeyay. Qaar horena waan sameeyo playlist baan ka dhigi doonaa sidii camal xalaqad oo kale aad ula socotaan. Waxaan jeclaan lahaa runtii inaan naga caawiyo qaabka aad hore ugu mari lahaydeen maskaxiyan, jir ahaan, maskax ahaan iyo haddii aad projectyo leedihiin waxyaalaha aad doonaysaan aad hirgelisaan si aad wax uga qabsan lahaydeen. Xataa wiilasha waan caawiyaa oo halkan waad kala wada socotaan. Laakiin muuqaalka maanta hablo ku socdaa waxa weeyaan maanta markaad yeelatid qoys hal arrin baa muhiim inaad fahantid. Okay? Qoys markaad leedahay gabadh yahay hal mid baa muhiim inaad fahantid. Waxa weeyaan wiilkaa ku guursadeed reerka dhisateen markaad guri isugu wada timaadaan arrintu maaha sidii markii banaanka la joogay. Okay? Guriga marka la yimaado waxaad ka cabsooto ma laho oo waa in markaad guriga imanayso aad maskaxdaada ka saarto wax kasta ood ku soo maqashay nimanka kale, qoysaska kale, wax dhibaatooyin meelahaad ka maqashay. Markaad guriga imanaysid horta inaad buufis ku jirto amba kan iska ilaali amba sidan horta waxa halkaa baad iska dhigaysaa. Waxaad meeshan aad u timid ood experience garaynaysaa waa noloshaadii, waa nolol private ku ah. Marka waa inaad adigii markaa niyad fiican aad gurigii horta ku timaado. Taasi waa arrinta ugu horeysa. Arrinta labaad ee loo baahan yahay waxa weeyaan waa inaad ogaato inankan ku guursaday waa isaga provider-ku. Ilaahay baa wax bixiye haddana isaga lagu amray in uu wax keeno gurigii. Waa biilki, waa maarinkaagi, waa dharkaad xiranayso, waa dharka ciyaalku xiran, waa waxaad cunayseen. Waxyaalo badan baa jira uu keenayo. Bacdamaa qofkii isagii wax laga sugayo. Waxaadii adiguna aad shaqayso aad gurigii wax ku soo biiriso waad iskaashi weeyaan oo mustaqbalkiina iyo horumarkiina iyo ubadkiina baad iska kaashateen oo waxbaad isla qabanaysiin oo ceeb ma. Balse haddana siduu dhaqanku yahay, siduu diintu yahay, siduu dhaqanku yahayba isaga wax laga sugayaa. Marka qof isagii wax laga sugayo gurigii isagii wax keenayo maskaxdiisu maaha mid fadhiya. Qalbigiisu maaha mid fadhiya. Waa mid mar walba ku jiro su'aalo. Badidooduna qofkay doonayaan inay impress gareeyaan amba ay doonayaan inuu qofkaas soo qaato qofkan inuu yahay qof karti leh, hero, nin wax kasta qabsan karaya qofka uma waramaan. Because hadday u waramaan waxay ka baqayaan inuu qofkan uu arko qof liita. Marka maxaa adigii lagaaga baahan yahay oo lagaa sugayaa. Markaas si uu inankaasi sida u dareemin qofku u waramayo waa inuu horta ka helo kalsooni. Kalsoonidaasi maxay tahay? Waa mid ah beritoole waxaanu kaaga waramay inaanad ku caayin, inaanad ku liidayn, inaanad u arkin qof aan waxba qabsan karayn, in beri haddii hadal yar iyo muran uu niga dhex dhaco aad ku horanayn waxaasaad ka cabsoonayso maadaa waxaa qaban karayba waxa arrinta adigii ka cabsoonayay ma waxaanaad maanta nala timid. Soo hadallada caynkaas oo kale inaanad ku oranayn yani qofku waa inaad kalsooni geliso. Waxaad ogaataa haddaba qofka dhana gurigan kula jooga maskaxdiisu ma degana. Waa maskax constantly shaqaynaysa. Halkeed biilki ka keeni beri markuu mushaharka yimaado halkan baan ku bixinayaa, halkan kiraan ku bixinayaa, halkan koorahan baan ku bixinayaa, halkan dharka ciyaalkan ku bixinayaa. Maxaa soo hadhi xisaab buu ku jiraa qofkaasi. Way jiraan dad aan xisaab ku jirin oo iska ladan oo fiican. Dee adigu mar walba baad u xitaa xisaabtii halkii kharashkii una ka baqayn haddana waxyaalo kale project ninku mar walba wuxuu ka fikiraa xabadii maad aragtay noloshii la fahmi weyda mooyaane wax mar kasta ay ka fikiraan in ay noloshooda wax ku soo biiriyaan. Uu haysta kan iska bedel, gaari uu haysta kan ku soo biiri, dukaan buu furtay xabad kale ku biiri inuu mar kasta wax kororsado because waa provider isagii baa wax keenaya markaasi wax u keeno waa inuu wax badan u qabto, wax badan uu soo kordhiyo. Hadda waxa weeyaan bacdamaa ay sidaa u samaysan yihiin nimanka. Nimanku hadday u samaysan yihiin dee haddaba wax weeyaan qaabkii u samaysan yihiin waxyaalaha keenayo inuu qofkani ku sii fiicnaado waa inuu la dhaqantid. Taasi waa muhiim. Wanaagu waa luqad. Ixtiraamku waa luqad. Luqadda inagu waxaynu u naqaanaa un hadalka. Maya dhaqanka laftigiisu waa luqad. Okay? So qof waxa jira rag aan wanaaga waxba ku lahayn oo luqadda aan fahmayn muxuu ahaa wax kasta oo la timaado aan fahmayn way jiraan.
marka kuwaasi allaha soo hadiyo. laakiin waxaan halkan ka hadlaynaa qof adligii aad jeceshahay adduunsa mustaqbal fiican la dhisato isla gabowdaan ubadkiina inigoo jecel nagu soo akoraan ma doonaysaa. marka inaad adiguna dadaal alla timaado weeyaan. waxa weeyaan qofkan wixii u sahlaya inuu wax kuu keeno gurigii wax ku soo biiriyo oo kuu dadaalo luqadaha sahlaya waa inaad la timaado. pointka maanta aan halkan ka wado introductionkan dheer aan u sameeyey waxa weeyaan wiilkan mar walba maskaxdiisu way kobcaysaa. waa qof mar walba experience ku jira, shaqo isku dayaya uma noqonayso, shaqo kale isku dayaya uma noqonayso, waxbuu baranaya uu fahmaya, wax kale uu baranaya uu fahmaya. waa qof mar walba isagii laga sugayo inuu wax keeno. si uu wax u keenana adduunkan buu isku dayayaa inuu fahmo. marka markasta waxbuu kororsanaya. waa qof maskaxdiisu sanadba sanadka kusii xiga kobcayo. marka haddaba maxaa loo baahan yahay? waxaa loo baahan yahay gabadh yahay inaad adiguna ku jirto update. qofkan waxbuu baranayaa, adna halkii uun ma taagnaan kartid, because berigaad isbarateen luuqadii aad iskula hadlayseen isku mid buu ahaa, isku level baad taagnaydeen. laga yaabaa inuu in yar kaa sareeyey, ama laga yaabaa inaad adigu in yar ka sareysay xagga fahmadda, xalka wada hadalka, xagga experienceka. way dhici kartaa inaa xogaa dhowr tallaabood la isyara dhaafsanaado. laakiin markii la isbaranayay labada qof ee hadalku iskugu baxday isku levelka unbaa isfahma. dadka kala booda, dadka isfahmi waaya waa dad dee kalaash badan u dhexeeyo, wax badan baa u dhexeeya, tallaabooyin badan baa u dhexeeya. way isfahmi waayeen, halkiiba lagu kala joogsaday. laakiin labada qof ee iskugu baxdo waa laba qof oo kaftanka isla fahmaya, waayihii adduunka isla fahmay, sheekooyinkii adduunka isla fahmay. qofkani wuxuu ka hadlayo isagoon hadalkii dhamaystirinba ogba halku ka socdo sheekadiiba adigana halkii kaga sii daraysa. almasaasaad heed alla walaa waad ila fahantay baa lagu oranaya. marka update baad isla haydeen, waa isku level baad marayseen. laakiin bacdama adigii aad guursatay, gurigii lagu keenay, ubadkii aad hayso, waxweeyaan updateka halkaabuu ku joogsanaya. updatekaad ku jirtay halkaabaa laga yaaba inuu ku joogsado. isagiina waa kan dadaalaya. marka waxa badayaa dhacda labada qof ee guriga ku wada nool inay isku level noqon waayaanoo inankani maskaxiyan hore u kobcay, hore uu socday, uu soconayaaba waaye isagiiba wax keenaya sooma. si uu wax u keeno waa wax soo barto, adigana halkii unbaa taagan tahay. marka badayaa waxa dhacda labadii qof ee conversation wax ay isla fahmaan inuu meesha iman waayo. ma ila socotaa sheekada halkan ka wado? waa qoysaska qaar waxa ku dhaca. marka anigu kuma lihi wuu kugu dhacayaa, laakiin waa inaad ogsoonaan karto halkay wax ka iman karaan. marka bacdamaa labada qof ee isla noole maanta dee qofkii markuu guriga imaado wax badan baa saan kuu sheegay ka dhex guuxa ragga. dee haddii waxan uu kaaga sheekeynaya aanad fahmeyn, oo qofkii dee iska hadlayo wax solutionya u keenin oo jawaaba, oo isagii niyadda u dejinaya, oo su-aalahan uu isweydiinayo, waxyaalahan uu kaaga sheekeynayo su-aalahan uu iska weydiinaya, haddanad wax dee aanad la fahansaneynba wuxuu ka wado, oo wax jawaabo aanad uga keeninin. waxaa dhici karta ninkaasi inuu raadsado meelo kale oo sheekadan la fahansan. waxaan la raadinaya, waxaan la fahansan, waxaan sheekadan qofkii markuu la fahmo kaftan kasoo dhex saarayo, stresskii kaga saaraya. way dhacdaa badiyaa way dhacdaa arrintani. marka intaasoo sanadood qof kula soo joogay beritoolna hadduu qof kale ku boodo, yacni ninkani evolution buu ku jira. marka qof levelkiisaabuu hadhow toole heshooday. ma fahmaysaa waxaan ka wado? maanta raba inaan kuugu dhiirigeliyo oon ku idhaahdo walowaad ubad haysato haddana hays dhigani wax iska baro, la soco waayaha adduunka, newska dhegeyso, kolba buug akhriso. waxaad akhrisataa buugaga ka hadlaya financeska, buugaga ka hadlaya financeka, economiga, ka hadlaya wadanada, cimilada. buugag waxaa jira ka hadlaya nimanka siyaasiyiinta, buugaga ka hadlaya nimanka muxuu ahaa mulkiilayaasha, waxyaalo furtay. wax kaste iska akhriso, maskaxdaada update ka dhig. waxaad weliba aad ugu ogaataa ood guntiisa ogaataa ninkaagu bishan muxuu gacanta ku hayaa, muxuu qabanayaa bishan.
bishan muxuu rabaa inuu qabto ugu waxaa qorsheex ku samee beritoole markuu wax kaala sheekaysto waad ogtahay wixii waad uga jawaabi kartaa solution baad u keeni kartaa marka waxa weeyaan gurigan ubadan kuma koranaysid qof kaloo weyn baa jira isagana oo isaga laftigiisii naftiisii korinaya laakiin adiguna ay tahay inaad ka qayb qaadato koritaankaasi arrintu maaha arrin culus ha iskaga dhigin shaqo culus oo weyn ha iskaga dhigin waxaan waad enjoy garayn doontaa hadhow because waxan uu dhisayo adiguna waa iska leedahay waad la dhisaysaa marka inaad update ahaato ayaa muhiima because waxa dhacda in badanna soo noqota laba qof oo nabadkooda nool oo ubad wada leh in amarka ilaahay ninkani xiisuhu kaba guuro oo because gabadhan baaba luuqad fahmayn oo uuna dee isku furfuri karayn oo markuu wax uga sheegayaana la fahmayn oo markii wax uu talo ay daayadii hadhow toola hadalkii kasoo saarsaartay ku tara war maxaa ku aamusiye hadal oo u waramo markuu u waramana gabadhii wax dee responsa amba wax jawaaba amba ninkan su-aalahan badan uu isweydiinayo wax dee ka furfuro oo solution u keeno la taliyo oo jawaabo la helo oo uu meeshii ka waayo waxa markaa dhacaysa in uu step by step uu isku furfuro qof hadalkii iyo muxuuha la fahmaya waxaan wado sidaasaa keenta reer dhan oo iska dhisan oo iska ladan ina maalin maalmaha ka mida uu qofkan iskaga dhaqaaqaba hadhow baa la oranaya oo loo xadiisaya oo la oranaya wareerka maxaad u dayacday wareerka maxaad san ugu gashay qofkan isagan waxaan hayaa kala tan weyn walaahi logic mo maskaxdooda anagu kuma dhex jirno laakiin waa waxyaalaha soo noqdo dhaca marka maxaa lagaaga baahan yahay waxa lagaaga baahan yahay waxa weeyaan inaanad adigu culays aanad isa saarin oo la suran alla maanta waxaan ka fikiraya waa inaan la fikiro may arrintaa ma loo baahno noloshaada caadi iska wado ubadkaaga korso iska shaqayso naftaada wax u baro horey niigu sheegaba nimanku waxay jecel yihiin dumarka ayaga naftooda busy ku ah because marka adigu busy isku tahay adigu naftaada ka shaqaynayso oo naftaada wax u baranayso oo ubadkaaga hagaajisanayso sida oon mashquul ku tahay qofkiina daba taagnayn 24 hour xageed martay maxaad samaysay maxaad qabanaysaa maxaad ka fikiraysaa su-aalaha raggaas way ka dhintaan marka waa sidii ilmo yaroo la talagideynayo u arkaan inta sidii ay lagu xidhay xarig kolba meel la waccinaya isku arkaan mugtahay samayso ku mashquulo ku daba wareer kuma lihi laakiin waxaan ku leeyahay adoo naftaadii ku mashquulsanoo adiga naftaada waxu soo kordhinaya haddana qofkaa dhan ee gurigii kula jooga adigii iyo ubadkii mustaqbal inii dhisaya waayihiisa waad ogaan kartaa so waxaan wadwado waa wax adiga kuu dhisayo ilmaha yar so waxaan kuu wadwado adigana waa kuu dan inaad fahansanaato so markuu maad aragtay bil walba waxaan qofkan kusoo kordhay haddaad yaro ogaato waxay tahayna yaro doondoonto maanta google baa ku caawin kara buugagii librariga ku caawin kara aad yaro akhrisato fahanto maalintu inankaasi isku kaa furfuro uu su-aalo iyo solution raadinayo walow aanad 100% aanad jawaabteeda u hayn haddana markuu arko inaad sujeegii midxiiseynayso oo waxaan uu wadwado aad wax ka fahansantahood aad meesha su-aalo ka keenayso jawaaba ka keenayso arkaya inaad interest garaynayso wuxuu sameynayo kuugu dadaalayo qofkaasi qalbigiisu more and more wuu isku kaa furfuraya because hawshii baad la fahansantahay waxbaad la dareensantahay ragguna in la dareensiiyo inay muhiim yihiin oo waxyaalahay kugula joogayaan marka waxaan rabaa inaan ku dhahdo inankan mar walba ha buuqin haddaba cararin haddaba wareerin just freedom fiican sii uu gurigii ku nafisayo laakiin la ogsoonow update ahaw wuxuu sameynaya update ku ahaw waa baro si aad beritoole markaad wuxuu kuu sheego aad jawaab at least xataa saxna inuu noqone adduunyadan waxaan wada aad wax ku ogtahay waa inaad update ahaato badiyaa raggu dumarka qaar waxay uga tagaan because luuqadiis lama fahmayaan waxuu kala sheekaysto isla fahmayaan meesha anymore ma jiro waa qof gurigan kusoo hooyanaya sidii camal hotel maydhanaya cunteynaya seexanaya adigii ku arkaya okay laakiin de meeshii sheeka ma jirto qaar baa koranaya lama hadlo lama sheekaysto because levelkii aad isla taagneedeen markaad isguursateen isagii ma taagna
maskaxdiisa wuu kobcay, experiencekiisa wuu kobcay, hore u socdaa, isku luuqad ma tihiin haddeed. Marka maxaa sheekada meesha imanaysaa maxay tahay? oon ahayn ubadkii ka waran adigu iska waran bes halkaasi wax ku joogsanayaan. laakiin waa in la soo celiyo sidii berigii aad isbarateen hadalku iskugu qiin baxayd istirahdeen walleekan waa qofkii laygu talagalay eed isku guursateen. waa in uu conversationkii awal la yeelan jiro meesha jiro. si uu u jirana waa inay gabadhu update ahaato, iska qofkan isaga waa update hore u socdaa. marka update ahaw, newska la soco, wax akhriso, qofkani waxyaalahan uu sameynayo isha ku yarhay, waxaan muxuu yahay maanta newska ka eegaya, waxaan uu baranaya muxuu yahay, waxaan uu ka shaqeynaya muxuu yahay. waxyaalahaasi waa inaad vocabularykiisa fahantid, waxay ka dhigan tahay fahantid. maanta Bill Gates ba wax soo saaray, waxyaalahaas uu akhrista, waxyaalahaas uu ka fikiraya business caynkaasoo kale ayuu doonaya inuu sameeyo. yara akhriso si beritole conversationkiinu waxa u noqdo. qofka hadduu hadalku iskugu kiin baxo meel kaleba maanta hadalka ma raadinaya, adigu kula sheekaysanaya. marka wareerina laguma laha, naftaada busy ku ahaw, ninkan space fiican sii, freedom sii. because guriga markuu yimaado saan kuu sheego waxa weeyaan maskaxdiisu ma joogsanayso, mar walba wuxuu ka fikirayaa beri maxaan qabtaa, maanta wixii iga khasaaray beri seen u hagaajiya. so ninkani wuxuu u baahan yahay guriga markuu yimaado inuu helo deganaasho, guri aamusan oo degan. 1 2 peace buu horta u baahan yahay, taasi waa run. buuq uma baahna. maxaad ila hadli weyday, maxaad hore ugu iman weyday, maxaa dhacay, su-aalahaas waa waxyaalaha hadhow tolo qofkan uu ka carari doono. marka qof fikirayo u fikirayo mustaqbalkiini su-aalaha ku badinin. peace buu u baahan yahay, su-aalahan ka buuxa uu jawaabteedii ugu helo. ma fahanti? marka peace waxa kaloo dhacaysa markaad ka wareysato ka waran shaqadaadii, arrimahan say wax u dhacayaan, uu kaaga waramo, dee hadduuna jawaab kaa helayn amba solution kaa helayn, dee qofkan isma daalinayo. markaa si aad conversationku iskugu kin baxaan, waxaanu ka shaqeynaya wax ka ogow. markaa gabadh yahay, waxaan intaasoo dhan kuu fahansiinaya aanu hadlayaa, waa inaad noqoto update. kuma lihi ku mashquul qofkanoo tallaabadu qaadaba ka daba qaad. waxaan ku leeyahay adigoo noloshaada iska wata, iska shaqaysanaya, gaadhigaaga iska wata, ubadkaaga shaqeynaya, isagii wuxuu u baahan yahay aad u qabanayso. haddana adduunyadan uu ku dhex jiro wax ka ogow, si sheekadu iskugu kin baxdo, uu qofkani kugu joogsan karo, uuna u raadinin qof hadalkiiyo sheekadii la fahmayo waqti la qaato. adigu waqti markaa qofkani kula qaadanaya, because hadalkiibaa iskugu kin baxaya. beritoola waxaa dhici karta in lagu yidhahdo kaalin soo wada qadaynanaay, waayo muxuu raadinayaa hadalkii uu kaaga warramay shalay toole, jawaabo waxaad siisay wax ka caawiyey. ma fahantay? marka isku day inaad update mar walba ahaato. okay, kubaduu xiisaya, kubadaha iska daawo, akhriso. si beritoole tv-ga markuu daawanayo soo ag fariisto tira walahi kooxdaan waa naqaanaa, kooxda caynka qofkii interest baad siisay. so markaa gabdhahu waxaad u baahantii inaad update ahaataan, waayo qofkan maskaxdiisa wuu koray, uu ka bacay, adiga halkii ma taagnaan kartid. adiguna ku mashquul wax adiga naftaada wax u taraya oo naftaada wax u qabanaya. xitaa adigu laftigaagu markaad uga waranto arrimo ku khuseeya, isaga already I know inuu garanayo, because san hore inaygu sheegayba raggu ma taagno halkan taagannahay, hore u socdaan, waxbay baranayaan constantly. so waxaad ka hadlay sidee meeshaad socoto uu kaaga jawaabaya, because uu garanayaa. hadduu garanayno waad dee uga warramay, meesha muhiimadda laga hadlaya waxa weeyaan waa provider, waa qofkan guriga wax keenaya, inaan la socono waxaan uu already garanayo iyo waxa soo socda, si aan u siin karno jawaabo. uu noqon karo garabkii lagu nasanayay, dhegtii dhegaysanaysay, iyo maskaxdii siinaysay fikrado, si noloshan quruxda badan uu doonayo inuu dhisto aad ugu sii dhex jiri karta dee. okay, noloshan weynuu dhisanayo ee quruxda badan uu doonayo inaad ku sii dhex jiri karto weeyaan. markaynu mar walba update ahaato. waxaan hadalka ugu celinayaa si aad pointigayga u fahantaan. nimalihii 24 hour qofkan dabacaymad daba taagno, waxaa xasaasiyad bay ka qaadaan nimanka da 24 hour daba taagan tahay. maya, noloshaada wado, dariiqaaga hayso, ubadkaaga ku mashquul, naftaada ku mashquul, isaga sii time kuu baayahay. balse halkan ka wada waxa weeyaan waa inaad waqtigaaga markaad kala qaybiso uu jiri karo waqti yaroo
aad update ku haan karto. Updatekaasi waa maxay? Waa nolosha ninkan uu rabo inuu idiin dhiso maxaad kusoo kordhin kartaa. Luuqadee baan kula hadli karaa, because waa inaad isku luuqad noqotaan, isku level waa inaad taagnaan kartiin. So evolution bay ku jiraan nimanku. Gabadhii evolutionga halkaa uu taagan yahay la taagan bay la joogaan. laakiin hadduu in badan kaa sareeyo, adigiina aad maanta markaad wada sheekeysanaysaan, luuqadan aad ku wada hadlaysaan in waxan aad kala hadlayso uu beri hore dhaafay, way adag tahay nimankaasi inay gurigaasii joogaan. waana run ahaantii arrin ay ku badan society-geena. waxaad arkaysaa guri qurux badan oo dushaa ka dhisan oo afkii luuqadii aqalka la isla fahmi laayahay. marka waxaan hablaha aad iyo aad ugu dhiirigelinayaa in aad waxyaalahan uu ninkaagu ka shaqaynayo, uu qabanayo, uu baranayo, adiguna adoon isaga buuqin markaad aragto waxay tahay dhinacaaga qorshash ka samaysid, ogaatid, baratid, kadibna beritoole markuu kuu waramo aad uga jawaabi karto, oran karto yaa khisaaysaaba aniga ila tahay waxaaba caalamka ka dhaca wadanka caynkaasa, nin caynkaya caynkaasi waxaasuu qabtay, saasuugu natiijo dhaliyey. ninkan uu ku dhegeysanaya wuxuu oranaya wow, haye bal iwad buugii qalin buu soo qaadan, uu ku dhegeysan. marka conversationkii baa isku ekin baxaya. wax walba uu ninkaasi gacanta ku hayo ood isleedahay waa mustaqbalka quruxda badan la nii dhisayo, si adiguna mustaqbalkaada ugu sii dhex jirto, wax meesha kusoo biiri waa inaad update ahaato. update ahaw waa inaad isku luuqad ahaan kartaan. sidii berigii aad shukaansanayseen uu hadalku iskugu kiin baxay, waa inuu hadalku iskugu kiin bixi karo. say sidaasi u timaadana dee waxa weeye ninkan maskaxdiisu mar walba way kobcaysaaye, adna maskaxdaada soo kobci oo wax baro, wax akhriso, adduunkii waayaha la soco. ugu dhiirigelinayaa inaad mar walba naftaada wax usoo kordhiso, u barato wax, naftaada ugu barato, qofkan kula noolna luuqadu fahmayaad kula hadasho. aad baan ku salaamayaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.